daawadayaal waxa aan ku sugannahay xafiiska Hackney Organisation ee magaalada Dublin dhinacayna waxa fadhiya gudoomiyaha markaasi community-gan Cabdicasiis Muuse dhawaan dawladda Ireland waxa ay soo saartay arrimo badan oo ka hadlaya arrimaha ma aragtay dadka magangeliya doonka iyo soo galootiga iyo waliba dadka kale ee arrimaha socdaalka la xiriira iyo shuruuciyo badan oo ay markaasi ku dhawaaqday bal si aan arrimahaasi dadka ugu iftiimino waxa aan wax ka weydiin doonaa Cabdicasiis ku soo dhawow codka dunida ugu horeyn haddii aan wax ka weydiino bal arrimahan dawladdu bariyo dambeeyay ay soo saareysay Cabdiraxmaan waa aad baad mahadsantahay barnaamijkan aad samaysay waa barnaamij aad u fiican oo community-gu soo dhaweysay runtii haddii aan dib u eego sharcigan cusub ee ay soo saartay dawladda Ireland waa sharci qabiye ah ama qabiye qoraal ah oo ay dawladdu ay approve karaysay laakiin sidoo sharcigu dhigayo sharcigan oo kale hirgelintiisu waxay ku xidhantahay wuxuu soo maray stages ilaa 6 stage ilaa 7 stage buu maraa marka hore xukuumadda ayaa proposalka keenta waana lagu raacay waliba wasiirku proposalku keenay oo dawladdu way ogolaatay laakiin waa inay marisaa baarlamaanka markay baarlamaanka mariso baarlamaanku sida caadiga ah wuxuu u gudbiyaa guddi la yiraahdo guddi ka soo tala bixisa ayay u gudbisaa kadibna haddana wuxuu maraa stage kale oo ah in maadaragtay baarlamaanku ka doodo kadibna stage-ka kale ku xigaana waa in golaha sanadka ee golayaasha uu soo maraa sanadkuna isagoo wax ka badbedelaa kadibna aakhirka ay dib ugu noqotaa maadaragtay baarlamaanku ansixiyaa marka la baas gareeyo xeerka haddana xeerku wuxuu dib u tagayaa madaxweynuhu waa inuu markaas saxeexaa saasuu sharci ku noqonaya saasaanu marka dambena lagu daabacayaa publicationka loo gelinaya marka horta processkaasuu maraa sharci kasta oo la soo saaro haddaynu dib ugu soo noqonno saamaynta ummadda ku yeelanayo waxa weeyaan imika saamayn ma yeelanayo laakiin haddii dawladdu iyo xisbiyada mucaaridka ah iyo kuwan human rights iyo waxaasi ay maadaragtay iyaguna barnaamijkooda jira ka hortagooga iyo waxyaalaha maadaama uu sharcigan yahay sharci aad u adag oo aan Irishka soo marin taariikhda haddana hirgelintiisa ayay dad badan khalkhal ka qaadeen marka haddii aan ka dhex galo sharcigan yuu qabanaya sharcigani horta ilaa hadda lama baas garayn oo sharci muu noqon laakiin dawladdu way adeegsan kartaa siyaasad ahaan in ay boos garayso maadaragtay inta uu sharcigani uu meel marayo systemka laakiin marnaba sharcigani ma qabanayo dadkii residence-ka ahaa ee sharciyada qaatay ee ku helay sharcigii hore for example International Protection Act sharciga la yiraahdo ee lagu dhaqo dadka qaxoontiga ah waa sharci la ansixiyay 2015kii sharcigaasi process buu soo maray processku soo marayna wax weeyaan waa process kii hore ee jiray for example 20 wixii ka horeeyay 15kii sharci baa lagu dhaqay Ireland la yiraahdo refugee 1996 act sharcigaasi waxa la isku keeni jiray walaalada aabaha hooyada family oo dhan ayaa la isku keeni jiray sharciga 15kii baa la joojiyay oo sharci cusub la soo saaray la yiraahdo International Protection Act oo sharcigan imika ah marka sharcigani waxba kama bedelayo dadkii ku helay sharciyadii hore sida kan imika aynu lagu dhaqmo ee la yiraahdo International Protection Act iyo kii refugee-gaba dadkii ku qaatay marka wuxuu ka bilaabmayaa markii ay ku dhawaaqeen wixii ka horeeyay baanu saameyn ku yeelanayn oo waxaad leedahay wixii ka dambeeyay xilliga ku dhawaaqeen saameyn ku yeelanay mise marka uu sharci noqdo buu hirgelaya halka hadda yar iftiimiso may sharcigan wuxuu hirgelayaa marka dadka la siiyo notice ayuu hirgelaya waxaanu ka bilaabmayaa dadka marka apply garaynaya oo ayuu ka bilaabmaya laakiin saameyn kuma yeelanayo dadka residence-ka ah waayo qofkan waxa lagu siiyay for example International Protection Act baa sharcigaas aad ku heshay kaasuu qofku xuquuqdiisa iyo right-kiisa oo ku helaya kaasa qeexay sharcigu sheegay uu hebel wuxuu sharciga ku helay sharciga noocaasa kaasuu markaa ku helay qofkaas laakiin kan cusub hadduu qofku cusub yimaado ka cusub ee uu ku helay Soomaaliga ee dambe ayaa xuquuqdii uu lahaa ayuun buu ku soconaya in buu raacaya مثلا maalintii hadda ku dhawaaqay wixii ka horeeyay dad baa sharciye helay
waxay filayaan in tusaale ahaan ay xareeyaan citizenkii dawladuna waxay sheegtay in 5 sano laga dhigay family reunionkii oo kale iyana dad baa u xareysan yahay ba marka ay dawladdu ku dhawaaqaysay waxaad leedahay dadkaas oo dhan ma saameynayo oo processkoodu uu sii soconaya laakiin kuwa ka dambeeya xilliga ay sharciga helaa ay saameynaya طبعا ma saameynayo dadka marka horeba already sharciga ku jooga ee ku apply gareeyay sharcigan dambe saameyn kuma yeelanayo kaasa hore ayaa jiray laakiin dawladdu trick bay isticmaashaa waa laga yaabaa dawladdu in dadka dambe markaas oo apply gareynaya xilliga inay siyaasad kula dhaqanto oo siyaasadeeda u gaara oo ay kamid yihiin paperwork ay badiso oo qofka paperiska laga doonayo laakiin qofkaas dadka ma saameynayso sharciyada ku helay laakiin waxay saameynaysaa dadka dambe ee marka apply gareynaya ayay saameynaysaa arinta kale waxa jirta dadka asylum seeker-ka dawladdu lacagay ku soo rogeen inay hoyga ka bixiyaan waana lacag badan markaad eegto cashuurtii baa laga jaraa xaqana lacag kala ay dawladdu ilaa iyo dhowr boqol weekii ayay ka doonaysaa iyadoo u eegtay darajaad kala duwan bal arinta iyada ka war horta taariikhda Irishka ee sharciyada isbedela waa wax soo jiray anu ma hadan khibradeeda ka sheekeeyo last 10 years ki dawladdu policy ugu isbedbedelay oo isbedbedel uu ku socday marka isbedelkaasi marnaba isbedelada sharci ma saameeyo inta badan dadkii hore sharcigii ay ku joogeen ee residence-ka ahaa saameyn kuma yeesho wuxuu ku yeeshaa uu saameyn dadka dambe ay shuruudahaasi ay saameyn ku yeelataa marka dawladuna waxay uga jeedaa uun mataqaana isbedelkan UK ka dhacay xagga sharciga in ay kaga hortagto ayuun bay kaga soo horjeedaa laakiin macnaheedu ma aha in dadka halkan ay degan maadaragtay ay ku dhibayso maaha laakiin waa ujeedadu waxa weeyaan dadka muhaajiriinta ah ee la filayo waxay yiraahdaan dawladdu 500,000 asylum seeker oo failure ayaa degan bay yiraahdaan UK dadkaasi waxaan ka baqi qabnaa bay yiraahdaan in jasiiradda ay soo galaan jasiiraduna way yar tahay marka waxa laga yaabaa in colobus system ka dhamo colobus garowo marka taas uma kaga hortagayaan laakiin ma aha mid ay inta badan wax loogu dhimayo dadkan sii joogay ee hore maadaragtay lagu cadaadinayo dhinaca kale arimaha guryaha iyo guryo yaraan ayaa jirta maalmahana dawladdu waxay ka sheekeynaysaa in lagaba baqayo in karays dhinaca guryaha ay dhacaan iyadoo markii hore guryo aad u liiteen bariyada arinta ka war horta arintan homelessku waa arin siyaasadeed oo muddo dheer soo jirtay wadankan taariikhda wadanka dib loogu noqdo markii Ingiriisku uu wadankan ka tagayay 100 sano ka hor wuxuu sameeyay in uu dadkii halkan deganaa maadaragtay dadkii isaga lahaa dhulkoo dhan horta oo qaatay iyo guryaha isaga lahaa Ingiriisku markuu ka tagayay wuxuu siiyay 10% dadka Irishka ah 10% dadka 10 la shaqeynay uu siiyay dadka intooda badani muxuu ahaa dad iska maxay ahaayeen uu cayreeyay Ingiriisku marka taas waxay sababtay in mulkiyadii ay private ay u gashay gacanta marka taasi muddo dheer bay soo jirtay iyadoo ay soo jirtay ayaa Ireland isbedel badan baa ku yimid xagga homelesska dadka iyo guryo la'aanta iyo muddo dheer bay soo socotay aakhirkii 12 sano u dambeeyay homelessku jiray Ireland marka taasa waxay keentay siyaasad bay isku bedeshay markii dambe in xisbiyada ay mataqaana ugu waaweyn ay ku badan yihiin laalowrisku labada xisbi imika halkan talada dalka haya laalowriska ay u badan yihiin ay taageeraan marka taasa waxay keentay in siyaasadii laalowrisku ay noqotay in business ay arintii ay isku bedesho marka tan imika homelesskana ilaa ay isbedelka xagga qolooyinkan liftiga ay yimaadaan mooyaane isbedelkan muxuu ahaa homelessku sii jiraya shanta hadda waxay sheegeen 300 oo kun oo guri shanta sano ee soo socota maxaa isleedahay baa ka hirgeli kara arinta wallahi way jirtaa horta guryo ay dhiseen oo imika ay wadaan oo way ballan qaadeen laakiin ballanqaadkaas inuu sii jiraya in kale lama garanayo laakiin waayo in muddo dheer ilaa 18 dawladdu way soo ballan qaadaysay ilaa waxay isbedel bay lahayd ku sameeyay isbedelkaas la mu jirin dadkana waxa ka dhintay mataqaaniyadii iyo moralkii marka anigu u malayn maayo in maadaragtay in isbedel inuu sii soco muxuu ahaa inuu isbedel weyn oo xagga guryaha uu dhici doono 5 sano arimaha sharciga Soomaali badan ba halkan soo gashay oo dalkan ku cusub waana dalal shuruuc gaara iyo arimo gaara leh
marka loo eego dalkii asalka ah laga yimi waxa jira ilaa iyo dhowr qof oo maxkamado iyo la xukumay qaarkood dambiyo lagu helay arrimaha maxaad Soomaali ahaan u soo jeedin lahayd dadka inay sameeyaan runtii horta wacyigelinta dadka Soomaalida ah ee halkan degan midun baa la gudboon waxa la gudboon in ay organizationska ay u arkayaan in maad aragtay for example anagu ilaa 10 sano u dambeeyaan ka shaqeynayo human rights-ka waxaan la soo shaqeeyay Irish Refugee Council-ka waxaan la soo shaqeeyay magaalada la yiraahdo Koog ee caasimadda labaad organization ugu weyn ee la yiraahdo Citizenship waxaan ahaa dadkii aasaasay anaga iyo 2 qof 3 qof oo kale waxa weeyaan waxa soo dhan organization-ka muddo dheer baan dhisaynay waxaan sababtaan u dhisaynay waxay ahayd in maad aragtay aanu helno mataqaana meel mataqaana dadka muhaajiriinta ah iyo dadka qaxoontiga ah ee waliba refugee-ga difaaci karta xuquuqdoodii marka iyadoo ay saasi jirto dadka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa maadaama ay dad badan oo Soomaali oo European oo wadamada Europe sharciga ka haysta ay Ireland soo galeen way number ku yara halka marka barigii hore iyo dad badan oo qaxoontiga ay soo galeen Ireland waxa iman karta qaladaad badan oo dadka Soomaalida ay ka galaan systemka ayaa iman karta qaladaadkaasi waxa weeyaan wuxuu saameyn ku yeelan karaa Soomaali oo dhan maanta Mareykan wax ka jira wad arkaysaa waxa weeyaan marka si aanay sumcad xumo weyn inoogu dhicin oo xitaa dhibaatooyin badan oo Soomaaliya dadka Soomaalida kaga dhacday baa jirta Norway Denmark iyo wadamada kale waxaana u sababaha waxa weeyaan marka aanu eegnay research badan sameynay gacmaha dadka Soomaalida ah ayaa u sababaha marka dadka Soomaalida haddii ay tashadaan oo ay wixii magacooga problem u keenaya ay iska qaban karaan waxa weeyaan waxa fiican inay organizationska ay isleeyihiin waxba idin la qaban karaan ay la midoobaan oo ay matqaan aqoontooda iyo karaamadooda ay ku muujiyaan kadibna si ay magacoogaasi in waxa loo dilin marka taas un baynu kaga badbaadin karnaa waayo waxaynu arkaynaa qaar magacii Soomaaliyeed ee halkan lagu joogay dilaya ayaan arkaynaa ama waraqa ku dilaya ama wax kale ku dilaya ama corruption sameynaya ama wax kale sameynaya waa dhici karta marka waxaas aynu iskaga qaban lahayn waxa muhiim ah inaynu inagu horta dhexdeena aynu ka midowno ayaa muhiim ah taas un baa laga badbaadi karaa marka taas un baan soo jeedin lahaa xagga sharciga ee aad weydiisay ah dadka Soomaalida ah oo dadka xaq ma u leeyihiin qofka Soomaaliga ah sharcigu wuxuu dhigayaa aan systemkan dawladda ka qoranahay dadka waxa la yiraahdo protectionka xaq u leh laakiin taa waxaan ku cadeyn karnaa waxa weeyaan waa inaga oo afkeena iyo matqaan xuduudeena midayna oo ayneen ku difaaci karnaa qofka loo diidayo sharciga waayo qofka Soomaaliga ah lama celin karo ee Soomaaliya u dhashay lama celin karo waayo meeshiina wali ma jiro dawlad maamusha oo dhab ah oo adduunku ay u garanayaan inuu administration ahaan ay Soomaaliya dhan ka shaqeyso ma jirto marka inta la helayo dawlad Soomaaliyeed oo matqaana dadkan damaanad qaadi karta sida koonfurta oo kale xaq uma laha in la celiyo lama celin karo ilaa inta meeshii ay ka yimaadeen nabad noqonayso oo ay helayso facility-gii xagga amniga community ahaan idinku maxaa dadka ka caawisa anaga runtii horta waxa ugu weyn ee aan ku caawinaa waxa weeyaan dadka inaanu sharciyan tilmaano oo meelaha sharciga ay ka heli karaan xuquuqdooda right-kooga aanu tilmaano difaacno u turjunno xagga sharciga aan ku hagno waa waxyaalaha ugu waaweyn aanu ka qabanno ay kamid tahay la talino inaan hay'adaha matqaana organizationska caawin kara dadka Soomaaliyeed u tilmaano shaqada ugu weyn aanu qabanno horta waa taa weeyaan aad baa mahadsantahay thanks